Saacadihii la soo dhaafay waxaa dunida qabsaday muuqaal dhex wareegayay baraha bulshada oo laga dhex arkayay madaxweyne Macron oo socod gaaban ku maraya qaybo ka mid ah dhismaha Rome, halkaas oo uu dad ku sugnaa salaan la dhex qaadayay. Balse mid ka mid ah dadyowgii isugu soo baxay oo ku sugnaa madashaas ayaa nin ka mid ah waxa uu dharbaaxo kulul kala dul dhacay madaxweyne Macron, waxaana ninkaas isku duubay askarta. Intaasi kadib madaxweyne Macron ayaana meel gabaad ah loola cararay. Laba nin ayaa dhacdadaasi loo xiray kadib markii muuqaalka uu baahay, sida saxaafadda Faransiiska ay ku waramayaan. Markii dharbaaxada ay ku dhacday madaxweynaha, waxaa lagu dhawaaqay "Ha dhaca Macron." Madaxweynaha Faransiiska ayaa waxaa ilaaliya ciidamo gaar ah oo u qaabilsan amniga madaxweynaha oo lagu magacaabo GSPR. Waxaa ciidamadan la aasaasay sanadkii 1983 waxayna ka kooban yihiin 77 askari oo isugu jira rag iyo haween. Madaxweynaha Faransiiska ayaa hadda booqasho ku marayay iskuul lagu barto maaraynta hoteelada oo ku yaala degmada Tain, sida ay saraakiisha sheegeen. Booqashada madaxweynaha Faransiiska ee deegaankaas ayaa imaanaya xilli dib loo furay baararka iyo maqaayadaha kadib 7 bilood oo ay xirnaayeen. Sidoo kalena waxaa dib loo xiray xilliyada bandowga habeenkii ee lagu soo rogay dalkaas. Berri waxaa lagu dhawaaqi doonaa tallaabo hor leh oo nolosha si caadi ah ayay ku soo laaban doontaa, ayuu yidhi madaxweyne Macron xilli uu booqanayay deegaanka lagu dharbaaxay.